halkan waa kaam barakacyaal oo ku yaala duleedka deegaanka Mirjicle ee gobolka Galgaduud. kaamkan ayaa waxaa ku jira dad abaartu ay ka leysa xoolihii iyo kuwa ka soo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay magaalada Xeraale. barakacyaashan duruufaha kala duwan ku yimid halkan ayaa u nugul qorraxda iyo dabaysha maalintii, waxayna u sii dacdaraysan yihiin qabowga habeenkii, iyadoona intaas oo dheer tahay cunno la'aan, biyo yari iyo kaamka oo aan dawo lahayn. nolosha hadda aan ku noolnahay waa ilaahay uun baa iska kaaya qoda wax aan haysano oo saaka gacan loogu jiro oo hadii ilaahay ku raay anagu aan hantiyoon idin sheegnana ilaahay uun wuxuu nagu qoosaan iska qaadanaa cunna. marka noloshana dan waa saas, waa xayaata mustakhir oo fiican ma ku nooli. geeligu 70 mar buu ahaa, haatan hal kaliya kama hayo. arwana ilaa 3 ilaa 4 buu isugu jiray. marka waxa weeye caawana waxba kama hayo. dhibaatooyinka ugu badan ayaa waxaa wajahaya haweenka iyo carruurta. hooyooyin dhowra ayaa ku dhalay kaamka xilli aysan ka jirin daryeel caafimaad, taas ayaana keentay inay dhintaan carruurta ku dhashay halkan qaarkood, sida ay sheegayso Khadiija Cabdiraxmaan oo ah umuliso. alaada kula tashan mayso, fooshoona kula tashan mayso. adigu intii 4 carruur way ku xijaabatay dhibkan dhacay dartiisa. mid baa meed ku dhashay, 3 kalena markay hawada ka soo hooyo ka soo baxeen bay dhasheen oo dabeeshii bay ku xamili waayeen, waqtigoodina waa iska dhamaaday. adigu ilaa 7 gabdhood baan banaanka ku umuliyay intii hadda shilkaanu socday. Maxamed Xuseen Cilmi, gudoomiyaha kaamka, ayaa sheegay in dadkan aysan haysan dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha. waxa bini'aadamku ku noolaa ma haystaan haba yaraatee. malaha biyo malaha, hooy malaha, cunto malaha. waxa bini'aadamku ku noolaa hal shay kama hayo. Axmed Wehliye, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka bini'aadanimada iyo daryeelka naafada Galmudug, ayaa sheegay in kaamka ay ka jirto dhibaatooyin baahsan, isla markaana hay'adaha aysan ka warhayn xaaladda dhabta ee ka jirta halkan. ka jira aagan waxa ku soo biiray dad kale oo badan oo ilaa iyo hadda qiyaastu qofood oo ka soo barakacay isku dhacay Xeraale, welina soo soo socda. marka runtii horta marka hore ilaahay baa dadka deeqdiisa ay badan waxaan ka rajaynaynaa inuu asaga naxariis badan oo naxariistiisa la soo gaaro. inta kadibna waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo dhammaan dadka muxsiniinta Soomaaliyeed in ay arrimahan wax ka qabtaan. duruufaha baahsan ee ka jira kaamkan barakacyaasha ee ku yaala duleedka deegaanka Mirjicle ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa laga dareemayaa wajiyada dadka ku jira kaamka. Maxamed Maxamuud Awaadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado.